ciidamada xoogga dalka ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ka fuliyeen wadada isku xirta magaalooyinka Jowhar iyo Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Saraakiil ka tirsan Kumaandooska Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka uu ka dhacay halka loo yaqaano Ceel Geelow ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in nolosha ay ku toogteen 3 ka dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab, kuwaas oo la sheegay in ay miino ku aasayeen wadada si ay u qarxiyaan gaadiidka wadadaasi maraya. Taliyaha guutada 16aad ee Kumaandooska xoogga dalka General Ismaaciil Cabdimaalik Maalin oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in howlgalku uu yahay mid lagu sifeynayo xubnaha ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose. Muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay wadeen howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, isla markaana ay ku bartilmaameedsanayaan meelo badan oo ay kaga sugan yihiin gudaha dalka. Al-Shabaab ayaa weeraro mararka qaar ku soo qaada fariisimo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin gobolo ka mid ah kuwa Soomaaliya, iyagoo mararka qaarna miinooyin ku aasa wadooyinka ay gaadiidka iyo dadkaba isticmaalaan.